kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobadan kuga helan waxaa kamid noqon doona hay'adda sirdoonka Soomaaliya inisa oo howlgallo qorsheysan ku dishay in ka badan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab 20 gaaraya xog iyo macluumaad intaas ku saabsan ayaad maqli doontaan halka uu ka dhacay dalalkaas ee hay'adda inisa ay ka fulisay waxaa kaloo daawan doontaan wasiirka awqaafta Muqtaar Roobo amaro culus wuxuu ka soo saaray Al-Shabaabkii dadka la macaamilaya xilli ay sii kordhayaan cabsida ganacsiyada Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ay ku hayaana digna ayaana loo jeedinayaa waa daawan doontaan beel cusubna waxa ay ku birtay dagaal ka dhanka Al-Shabaab soo bandhigtay ciidamo iyo hub fara badan hadda waa beeshaasi waa idin soo gudbin wasaarahan waxa uu la kulmay dhaqaatiirta dalka Djibouti ka socota ee oo xilsaaran arrimaha markaasi caafimaadka dadkii ku waxyeeloobay qarxidii soo ka dhacay iyo wararka arrimaha gobolkan waxa uu weyn xiisad ayaa u dhaxaysa dalalka Rwanda iyo Congo faahfaahin dheeraad ayaana ka soo baxaya qodobada ku faahfaahin doona warar kale macluumaadka diblomaasiyadda fadlan muuqaalka like saarsiina shir gareys saaxiibadan u gaaro subscribe-ka noo saar aad baad u mahadsantiin aynu ku bilaawna saaxiibayaal hay'adda NISA oo macluumaad badan soo bandhigtay oo ku saabsan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ay sheegtay in dagaalamayaal 21 gaariya la dilay howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen hay'adda NISA dowladdu waxay shaacisay in ciidamada hay'adda NISA ay howlgal oo qorsheen ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose ku dileen 20 maleeshiyo oo ka tirsan ururka Al-Shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgalka la qaaday kadib markii la helay xogta koox jabhadda Al-Shabaab kamid ah oo dagaal markaas isku diyaarinaysay 20 ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay ku dhawaad 10 kalena oo lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka gaarka ah hay'adda NISA ay ka fuliyeen deegaanka gaalka Saalimo oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidanka sirdoonka uu helay xogta kooxdan oo kamid ahayd kooxaha jabhadaha oo xilligaas ku howlnaa baaliri diyaarinta falal ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed howlgalka oo ahaa mid bartilmaameed ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyay waxaan lagu burburiyay dhammaanba kooxdii Al-Shabaab ka ahayd ee halkaas ku sugnaa iyo dhagarta ay u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska hay'adda muusikada Soomaaliya ee NISA loona faafiyay bogga markaas rasmiga ee warbaahinta dowladda ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya NISA ayaa maalmihii ugu dambeeyay wada qorshaha ka dhanka Al-Shabaab ay si weyn markaas ay ula dagaalamayeen dhinaca kale haddii aan eegno wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa soo saaray digniino iyo amaro cusub oo kana Al-Shabaab cid lama caamisha xilli arrimahaas digniinta ganacsiga loo jeedinayo si kordhayaan wasaaradda ayaa soo saartay amaro ku saabsan Al-Shabaab oo ku socda culimada iyo magaca kooxda loogu yeero war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda uu wasiirka ka yahay Muqtaar Roobo ayaa lagu sheegay in culimada Soomaaliyeed laga reebay inay macaamilaan kooxaha qawaariijta iyo in ay markaasi aan loogu yeeri karin magac aan ahayn qawaariij waa sida hadalka loo yiri qoraalka wasiir Roobo ayaa lagu sheegay in argagixisada Al-Shabaab loo isticmaali karo oo kaliya magaca qawaariij isla markaana culimada laga reebay aadista Al-Shabaab taasoo ay ka dhalinayso fal dambiyeedo qoraalka ka soo baxay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli culimada Soomaaliyeed loogu baaqay in markaas weyn ay ugu soo horjeestaan Al-Shabaab maadaama hadda dagaalka uu galay dagaal dhowr jiha oo Al-Shabaab loogu soo horjeedo taasoo meelo badan gobolada dalkana markaas ka socda markaana aan eegno mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed dagaalkaas ayay ku soo beereen oo ay ku dhawaaqeen waaxda dagaalka waxa deegaanka wasiir gobolka Mudug maanta lagu soo bandhigay ciidamo iyo hub far badan oo loo diyaariyay inay ka qayb galaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab gaadiidka dagaalka iyo ciidamo far badan oo ay soo diyaarisay beesha Sacad ayaa lagu soo bandhigay dagaalka wasiir ciidana ay halkaas gaarin wafdi uu hogaaminayay wasiirka amniga Galmudug Maxamed Abdi Aadan Gaboobe iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari ciidamadan oo lagu sheeganayeen daraawiishta Galmudug ayaa u diyaarinaya inay ka qayb galaan dagaalka Al-Shabaab waxaana beesha hore loogu eedeeyay inay ka fariistay dagaalka Al-Shabaab balse waxa hadda muuqata inay ku bireen dagaalka saraakiisha hogaaminaysa ciidamada beesha Sacad ee Habargidir ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ku biraan dagaalka lagu doonayo in Al-Shabaab looga saaro gobolada dalka gaar ahaan deegaanada mulkaasi Galmudug oo beesha markaas ay degto beelaha Habargidir ayaan muddooyinkii ugu dambeeyay cagajid ka waday dagaalka Al-Shabaab loogu soo horjeedo ee deegaanadooda markaas ka socday inkastoo hadda ay u muuqdaan kuwa markaas ku dhiiranaya dagaalka inay galaan isla markaana ay shafka iska orxeenayaan maadaama ciidamo hore loogu soo jeediyay qaybihii dhexe ayaa daawanaysa channelkan saaxiibayaal subscribe kuma soo gambalkan furta una sii share gareeya saaxiibadii markasta joogaan dadku commentiga like noo rabiya aad bad maasantii bal markaana aan eegno
ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wuxuu la kulmay dhakhaatiir ka socda wadanka jabuuti. wasaaraha ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dhakhaatiir ka socda dalka aan walaalaha ee jabuuti oo muqdisho yimid sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dhaawacyada dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay xasuuqii al-shabaab ay ka geysteen isgoyska kilomitir 5 bishii hore Oktoobar. dhakhaatiirta ogaayaysa 20 ayaa intii ay ku sugnaayeen caasimada muqdisho waxa ay ka qayb qaateen daaweynta iyo daryeelka dhaawacyada ku jira isbitaalada muqdisho iyagoona gacan siinaya dhakhaatiirta Soomaaliyeed. wasaaraha ayaana ugu mahadceliyay dhakhaatiirta dowladda iyo guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Jabuuti taageerada hagar la'aaneed ee ay la garab taageen shacabka Soomaaliyeed ee xilligan adag ku jira. xabsa oo xusay doorkii muhiimka ahaa ee dowladda Jabuuti ay ka geystay dowladda Soomaaliya ayaa ku ammaanay sida ay mar walba ugu taagan yihiin gacan ka qabashada ummadda Soomaaliyeed marxalad walba ay ku jiraan. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay siyaha danjiraha Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliya mudane Maxamed Rashid Ibrahim Yusuf iyo sidoo kale guddiga qaranka ee gurmadka qaraxii kilomitir 5 Soobar 2022 Oktoobar ka dhacay kaasoo galaabsay nolosha in ka badan 120 qof oo shacab ah 400 iyo dad ka badanna dhaawacyo culus ayaa ka soo gaaray waana qaraxii markaas ugu dhimashada badnaa ee Soomaaliya ka dhaca. wararka gobolka ayaan aadina markaan xiisad ayaa u dhaxaysa dalalka Rwanda iyo sidoo kale Congo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda ayaa sabtidii isku raacay inay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhaxaysa isla markaana ay ku xalinayaan qalaasaha siyaasadda ee ka dhex taagan xiriirka gobolada bartamaha Afrika ayaa bilihii ugu dambeeyay aan xasiloonayn iyadoona DRC ay ku eedeysay dalka yar ee dariskiin ee Rwanda inuu taageero maleeshiyaadka falaagada ee barkicay 10,000 oo qof. bayaan ay si wajir ah u soo saareen shir ay ku yeesheen Angola ayay wasiiradu markaas isku kaashadeen ama isku raaceen inay sii wadaan wadahadalada taasoo ah mudnaanta in qalaasaha saad ee labada dal ee walaalaha ah la xaliyo iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha xiisaha markaasi ka dhaxaysa labada waddan. qorshaha lagu dhameynayo xiisadda ayaa waxaa heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd ku kala sixday madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi kadib markii ay toddobaadyo markaa xasilooni darro iyo buuq halkaa ka tagnaa. falaagada M23 ay dib u bilowday weerarada dhamaadka Oktoobar iyadoona toddobaadyadii ugu dambeeyay ka qabsatay Congo dhul baaxad weyn taas oo ka cariisisay wararka Soomaaliya caalamka ka soo danjarkeena daawadayaal wanaag inta